doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas. Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka. shahaadadiisa PhD-gana waxa uu ku sameeyey mawduucaasi isagoo ka qalin jebiyey jaamacadda McGill ee dalka Canada. waxaa taariikhda la sheegaa in badan sababana lagu celceliyaa in islaamku Soomaaliya soo gaaray marka ugu horeysa oo hijradii ugu horeysay oo dadkii muslimiinta ahaa inta lagu cadaadiyey magaalada Maka ay yimaadeen dalkan hadda meesha la yiraahdo Aksum oo ka tirsan hadda markaas waxaa jira Abyssinia laakiin Ethiopia ka tirsan tahay oo la yiraahdo taariikhiga halkaas markay yimaadeen oo Afrika marka ugu horeysa oo islaamku soo gaaray ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas dana ay Soomaaliya soo gaartay. dhulku dabcan waqtigaas Soomaaliland ma ahayn dhul isku dhafuran lahaa laakiin daraasad markaa ka sameeyay waxa u dhaxaysa marka meesha Soomaalidu degan tahay ugu horeysa oo Zayda markaa ka soo qaado iyo Aksum waxa u dhaxaysa 2 kilomitir oo wadooyin lahayn. waxaa la ogyahay kala dagaalkii ka dhacay waqtigii Abu Bakar dagaaladii ku dadkii diinta fataha marka la dagaalamay in qawaa'il badan oo la jibiyay qaarad dad kamid ay u soo carareen Soomaaliya waqtigaas ambadatan oo ka soo cararay xukunkaas inay yimideen waa la sheegaa oo Umaaniyiin u badan. waxaa kaloo la sheegaa in Soomaaliya ay islaamka soo gaaray waqtiga Umar ibn Khattab oo madaxda ahay oo magaalada Muqdisho ay lacagtaan u ururi jirtay oo ay sii jirtay khilaafadii Umar ibn Khattab ay sii jirtay waa la sheegaa. Soomaaliya islaamku wuxuu ku soo gaaray si nabad ku soo gaaray waxaba yaraatay qoraygii loo qaatay jihaad ma jirin. Muuse Sheekh Xariir waa aqoon-yahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaas ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray Ardul Xabash si weyn ayay u soo dhaweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer Quraysh. hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay nabigu alayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday Maka uu aaday Madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 615 meelahaas bay tageen wadanka Xabashida u gudbeen oo boqorkii waaga xukumay Xabashida oo magaciisa la oran jiray kulkii hore la oran jiray Nugus al-Ashama boqorka Itoobiya markii dambe uu islaamay uu diinta islaamka isagu qaatayna loo bixiyay Ahmed al-Najashi yaa soo dhaweeyay oo taariikh aan oo la yaqaan oo ay ku hataa mataqaana nimankii Quraysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay ka kala ka soo daba direen ay yiraahdeen noo soo celi nimankan uu ka diiday markuu isu dhageystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qodobada muslimiinta ah oo hogaamiye u ahaa oo horkacay qodobada xootiga ee muhaajiriinta Jaafar Abu Talib oo maxay ahaa ninka weynaa Ali Abu Talib saxaabigii weynaa maxay afartii khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyay ee taa wadanadan Carabta iyo Xijaaz inteeda kale diinta islaamku intayna meel laba ku faafin intayna Madiina tagin intayna meel iyo mataqaana wadankan Itoobiya Xabashida ay timid diinta islaamku. waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Itoobiya ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd? waxay ahayd iyadoo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu u dood qaaday nimankii Quraysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ay ku doodayeen. Jaafar Abu Talib uu yiri baliiga waran waxa uu keenay maxay ahayd rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta islaamka uu akhriyay suuratul Maryama iyo qayb kamid ah uu akhriyay aayado kamid ah markaasuu aad iyo aad ula dhacay uu yiri mataqaana diintayadu wixii ay sheegayseen aaminsanayn buu nabigan u sheegayaa waana kii uu nabigiisa sheegay maxay ahayd Injiil lagu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waan aqbalaynaa waan idin soo dhaweynayaa oo si buuxda iyo gacmo furan ugu soo dhaweeyay nimankii Quraysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeen hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen intuu sayday buu yiri ila dhaafa iga baxa wadanka noqda dadkan anaa difaacaya anaa garab taagan aniga mataqaana wadanka ay si xor ah ugu noolaan karaan.
Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta. Waxa uu si gaar ah uga hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu Islaamku ka soo galay gobollada dhinaca koonfurta. Waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryar ee ka samaysmay Itoobiya kuwa sahla inay diintu u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano Soomaaliya. laba hijriyadood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beextada ay yimaadeen way noqdeen maadaama Maka ay muslimtay marka wax ka harayna male marka qaar waxay yiraahdaan raadad ay dadkaasi soo hijrooday ka tageen ama dad ay muslimiyeen ba iyo islaamka ka bilaabmayo taas waa riwaayad laakiin riwaayadaha oo xoog leh badanaa waxay ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiiradda Carabta maadaama markuu nabiga dhintay alayhi salaatu wassalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sokeeye ay dhaceen ay ugu horeysay yani dagaalkii sokeeye Sayyidina Abubakar lagu qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan xuruub ridda wars dad badan baa soo cararay Oman bay soo maray waxay imaanayeen ilaa xeebahan koonfureed ee Soomaaliya ay ku soo dhacayaan waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen xataa markii khalifa Usman la dilay qudhiisii dad badan baa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaray waxay oranayeen umawiyiintii iyo shiicada markii Ali la dilay Sayyidina Ali ayana tiro badan oo dadka khadamaanta loo yaqaan ashraaf ayaa soo cararayo Soomaaliya soo gaaraya marka islaamku Haarunow saad yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo islaam soo geeska ku yimid dadku waxay eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska Afrika مثلا Zayla oo kale iyo Berbera iyo ay u dhow yihiin dalalka Carabta laga yaabay in meesha uu ka soo bilaabay laakiin xaqiiqadii waxay tilmaamaysaa maanta hijradii xabasho la soo aaday qudheedii waa tii laga soo dabagalay oo reer Maka ay ciidamo soo direen inay soo celiyaan marka muslimiintu way ka baqayeen inay maaragtay ku nagaadaan geeska Afrika way fogaanayeen ilaa waxay gaarayeen xeebahan hadda maanta loo yaqaan Banaadir iyo wax kasii hooseeya oo Kenya iyo dhulkan Soomaaliga oo ku batay marka kaas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen meesha kuma ay nagaanayeen marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abyssinia labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaaneen kadib bay haddana islaamka oo sii fidaya oo sii galaya Abyssinia ama Xabasho dawlado fara badan baa ka dhisman doona bartamaha yani Soomaaliya iyo Itoobiya dhulka u dhaxeeyo kuwa weeye kuwa marka dambe islaamku aad iyo aad u xoojin doono oo markii gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale marka dadka ugu horeeyay ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkeeday ka soo galeen magaalo ahaan gobol ahaan waxa la tuhmaya dadkii muslimiintii ugu horeeyay ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa ku lahaa waxay ka soo cararayaan dagaaladii Sayyidina Abubakar sanooyinkii masalan hijrada 13 dad soo cararay baa jiro imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho waxay ka bilaado marka baraawo xeebtan ay imaanayaan waxaa la haayaa masalan yani Muqdisho nasiib daro hadda maalintii markaan tagay waan soo waayay museumka xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkood taariikhdiisu ay ahayd 101 hijriya 101 hijriya waxa way waa qarnigii 7aad ama 8aad miilaadiga weeye islaam meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Samad yani dhagaxa madaxeeda yaalay 101 ku taalay hijriya islaamka loo xaajiyo la yiraahdo bint Muhammad Muqaddam ayadana waxay dhimanaysaa 138 marka يعني aad iyo aad waqti yani waxyaabaha la daliishan karayo maartay in muslim oo yimi ay yimaadeen maartay Soomaaliya qarnigii koowaad gaar ahaan qarnigii labaad aad bay u soo badanayeen xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika isla markiiba diintu waxay si toos ah u taabatay noloshii dadka waxayna bedeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah Professor Maxamed Mukhtaar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday intuusan islaamka imaanin geeska Afrika diin waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyada waxaa jiray diima oo runtii aan ahayn diimahan
sida loo yaqaano diimahan oo semiticada ah yahuudiyada iyo masiixiyada islaamku ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha hareerahooda maaragtay ay caabudi jireen ha ahaadeen masalan wax dabiico ah buura wax ah soomaalida masalan waxaad maqlaysaa waaq oo kale waaq waa ilaahay waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aad u xoog badan oo runtii laga ducaysto oo maxaan idhahdaa nabad laga raadsho marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahan aan naqaano lahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ah ama non believers wax la yidhahdo ay badnaayeen deegaanada soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyey ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada saylac waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo qiblateynka ee degmada saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda afrika masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7aad waxaana uu leeyahay 2 qiblo oo mid ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka imaatinka islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horeeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgeliyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Bershiya Dr. Maxamed Cabdi Gandi waa taariikhyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada diinta islaamka anaga sida aan qabno oo qoraaladu ay qabaan waxaa la aaminsan yahay diinta islaamku inay dalka Soomaalida ay soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaarin taasoo ay xilligii Jacfar bin Abi Talib koox islaam oo dacwo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka xabashada oo boqorka xabashada yimaadeen hilka labaad oo lagu wado inuu ahaa hil aad iyo aad u weyn wuxuu ahaa 2 nin oo walaala oo boqorka ka ah dalka Cumaan oo la yiraahdo Suleymaan iyo Saciid Galandi nimankaas oo iyaguna xukumay marka Cumaan 75 ilaa 95 hijradii markay ahayd nimankaas oo iyaguna markaa ka soo cararay cadaadiskii uu saaray Cabdulmalik bin Marwan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira hirkaa ku xigay wuxuu ahaa Zaydiyiin marka Zaydiyiintu waxay ka yimaadeen Yemen waxaa weeyaan waa koox Shiica ah 122 hijradii markay ahayd ay yimaadeen waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen bay aragtida ay wateen iyo fikirka ay wateen wuxuu ahaa fikir Shiica ah waxayna halkaa tageen markii Umayyiinta ay dileen imaamkoodii Zayd oo Ali bin Abi Talib uu ahaa awow nimankaas waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo waxayna joogeen 200 sano intii ay Sunniyiintu ka soo bilaabanaysay in iyaguna markeeda ay u soo hijrooto ama ay soo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada bari marka iyaguna waxay u guureen gudaha waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Portugiisku uu qoray oo qoraalo Portugiisku uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya oo 1505 ah oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horeysay oo ugu weynayd oo xeebta Afrika timaada marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga annaga maadaama uu xiriir hore naga dhexeeyo annaga iyo koonfurta carabta ay dadka islaamka markii mar walba dawlad islaam ay timaado khilaaf siyaasi ah qoladii markaa laga tabardaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed ilaa iyo 12 hir baa imaadeen maaragtay waxaa haddaba geeska Afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan waxaa ku xigay qolada Zaydiyiinta ah hir kaleeto oo ay ka yimaadeen jasiirad la yiraahdo Ifsa waxay ka soo carareen dadkaasi boqortooyadooda waxayna degeen magaalada Muqdisho waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolof Shiica oo Faatibiyiin ah waxay yimaadeen Baraawe oo ayaga Baraawe dhisay dad qabaan taakii ku xigtay waxaa jira nin la yiraahdo Xasan bin Ali iyo carruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen Shiiraaz oo boqorka Shiiraaz uu Xasan dhalay oo markaa ninkaas hooyadiisna naag madow ahayd marka walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midabta koor meeshii uu ka soo guuray isaga iyo qaraabadiisa iyo walaalihiis oo asaga la dhashay hooyaha
waxay imaadeen markaas xeebaha soomaalida gaar ahaan waxay yimaadeen kilwa waxay yimaadeen baraawe meesha la yihahdo iyo mombasa hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa nin sheekho waxaa jiray la dhihi jiray sheekh abaadir marka sheekh abaadirkaas wuxuu imaaday qarnigii afraad ee hijriyada ayuu imaaday ninkaas wuxuu tegay xarar wuxuuna noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta islaamka halkaa ka faafiyeen marka abuushida nin la yidhahdo kaloo carab ah oo isaguna qoray buug wuxuu sheegayaa qarniga 14aad dadka sayrax degan kulligood inay islaam yihiin marka hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa dadku abtirsada caqiil bin abi taalib dadka ayaga ah waxa ay degeen magaalada jabarta oo imaaraadka islaamiga ah oo geeska afrika ka jireen